inta indhaha laga xiray gaari nooha lagu qaaday guri kamida guriga garowga baa lagu xiray kadib gaari dushiis baa la saaray inta silsilad lagu xiray baa gaari dushiis la saaray dulmiga waxa ay geystay madaxweyne taliyihii hore oo qaybta Maxamed Digile oo gobolka Nugaal ka ahaa markaas lugahayga dhaawac muddo 3 bilood ahaayeen waxaan ka codsanayaa baarlamaanka Puntland inay arrintaas soo farageliyaan maxkamadda u deedaan xasaanada ayaa xukun aniga ugu soo saartay hantideedii ay ku dhacayaan shaati qabiil loo gashtay dad gaar ah dhinac ka raran maxkamad dhinac ka raran weeye maxkamadda saddexaad xasaanadna ma haysato baarlamaanka waxa u dirayaa in arrintaas soo farageliyaan madaxweynaha waxaan ka codsanayaa usna in arrinteeda si hoose oo si dhaqsiya badan igu soo jawaabo nin dulman baan ahay madaxweyne bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Maxamed Saciid Mire Nuurow halkan waxaan ku soo gudbinayaa shirkeyga jaraa'id qaybtii labaad waan ka cabanayo garsoorka Puntland cadaalad darrada waxaan ka cabanayaa garsoorka Puntland cadaalad darro ay u kaceen oo ka jirta Puntland gaar ahaan Garowe 2020kii bishii 8aad ayaa waxaan ka soo doolay dalka Imaaraadka Carabta waxaan imid Addis Ababa maalin baan joogay kadibna Muqdisho aan tagay 3 bari baan joogay Hargeysaan imid Somaliland ayaa wuxuu ugu yimid nin aan saaxiibanahay oo markaan wakiil ahaa Puntland soo ay ka tahay soo dhaweyn kadib ninkaas wuxuu bilaabay inuu soo raacno oo Garowe aan aadno Puntland jidka anoo maraya wuxuu adeegsaday qowleysato Maxamed Digile uu wato oo ninkaas isku heeb yihiin nin Axmed Afdiile la yiraahdo Maxamed Digile isku heeb yihiin ninkaas baa waxa weeye ciidan uu amray in la xiro saldhiga Garowe la geeyay nin la yiraahdo Shiine oo goobiga jooga wuxuu yiri ninkaan uu xirin maayo haddii hartaan inay xiro sifa sharciya maxkamadda taga taliyaha qaybta Maxamed Digile ayaa yiri ninkan xir silsilad inta ku xirtid qolka ugu dambeeyay saasa la sameeyay qolka ugu dambeeyay lagu xiray habeenkii markii ahayd baa laga saaray inta indhaha laga xiray gaari nooha lagu qaaday guri kamida guriga garowga baa lagu xiray kadib gaari dushiis baa la saaray inta silsilad lagu xiray baa gaari dushiis la saaray ninkii askariga ahaa baa waxaan ku irinay saas dhan waxa ay u ciqaabaysaa wuxuu yiri amar baa lagu siiyay inaan qaybta ugu sareysa kugu xiro jaraa'idka ugu sareeya marka waxaan ku irinay how saan hadii ixsaan ugu sameynaysid waa mahadsan tahay kadib laba habeen iyo laba maalmood anoo sidii xaaladii ku jira ayaa laga kaxayay waxa la geeyay xabsiga Garowe silsiladii igu xireen markaas labada lugood bay isku dhaweeyeen sidii la qof la seetay oo kale nimanka xabsiga jooga waxay dhahay ninkan furihiisa keena waxay dhahay furihiisa waa naga dhumay nin la yiraahdo Cabdisaaq Daahir oo nin aad u fiican xabsiga Garowe jooga oo taliye ka ah ninkii baa kaxayay waliba qaaday wuxuu igeeyay qol kamida qolka xabsiga niman dhalinyaro fiican baa la geeyay nimankii aad bay u soo dhaweeyeen iyaga qaaday suuliga igeenayay maalintii dambe nin la yiraahdo Jakarta oo xabsiga ka shaqeeya Garowe ayaa silsiladii iga jabiyay iga furay lugahayga dhaawac muddo 3 bilood ahaayeen oo dhakhtar la tacaalay nimankaas guriga igu xiray Garowe lacag bay weydiinayeen oo $50,000 ah oo ay dhaheen $50,000 bixisid waa lagu sii diinay kadib ninka la yiraahdo Maxamed Saciid Axmed Afdiile wuxuu bilaabay dacaayad samcadeeda inuu dilo oo yiraahdo dad badan oo customerkayga ahaa oo lacag hanti u hayay oo ninkii waa inoo xiran kaali lacagtina ka qaatay dad 22 qof ah waa lacag u hayay hanti u hayay 9 kamid ah ayaa xabsiga ugu yimid iyagana markooda lacagtooda aan siiyay Axmed Afdiile wuxuu diiday inaan xisaabtano maxkamadda darajada koowaad waxaan ku irin ninkan ana lacag kula hanti kule aan xisaabtano way diiday inaan xisaabtano ani $45,000 dusha iga saartay aan qabin maxkamadda darajada labaad oo rafcaanka waxay tiri lacagtan qayb bixi qaybna damaanad sameeyso saan hore u sheegay fiidiyoga hore lacagtii waxaan bixiyay $14,000 si aan meesha xabsiga uga baxo anigoo sanad 3 bilood xirnaa kadib maxkamadda darajada labaad Jans Business waxay tiri soo xisaabtama inuu xisaabtama waa diiday ninkaas waxaan isku daynay hawshan in hab qabiil u galno hab qabiil loo galo baa isku daynay aniga oo wata odayaashaydii ayaa odayaashiisi u tagnay odayaasha aan wato waxa kamid ahaa nabadoon Abshir Yaasiin
iyo nabadoon hayaan iyo caaqil mubaarak yuusuf siciid iyo suldaan faysal dubbe iyo xaaji maxamed xaaji maxamuud muumin iyo ismaaciil abshir yaasiin iyo ibraahim siciid saalax iyo faarax jaamac iyo ninka la yiraahdo injineer maxamed faarax dalmar iyo suldaan siciid faarax dalmar raggaas oo dhan aniga wata ayaan waxaan aadnay aabihiis oo u tagnay aabihiis wuxuu nagu jawaabay wiilkayga maxkamadaas buu ku ekaanaya maxkamadiina ku ekaada kadib waxaan bilownay inaan gobolka bari anagoo intayadii ah 10kii qof oo nabadoonada ay suldaamadeeda wata ayaan wax u tagnay ninka la yiraahdo gobolka bari shahdoon baa u tagnay shahdoon waxaan ir dacwad baa waxaan ka nahnay ninkaas intaas inta leeg baa maqan documentigii baa u dhiibay wuxuu wacay nin la yiraahdo dirir oo taliyaha qaybta ka ah boosaaso ayuu wacay wuxuu yiri niman halkan jooga baa nin isku heebtihiin ka dacwad ah ninkaas laga rabaa dirir 4 bilood buu warwareejinayay oo lahaa bixi saa dambe ba keenaya oo keeni waay kadib maxkamadii darajada labaad baan xisaabtan siisay oo baawurtayadii dacwadeedii gashay aan ku soo laabanay maxkamadii darajada labaad axmed afdiile baawurtu qirtay waa ku halka ku qoran waa gaariga bajarada ah iyo gaariga probokiska ah iyo gaariga noohada ah oo lagu qiimeeyay noohada waxa lagu qiimeeyay 2700 baa lagu qiimeeyay alaab isbeer baarti iyo alaab gurina waxa lagu qiimeeyay oo $736 aniga alaabtaas wuxuu ugu fadhiyay $6,000 baawuratan qaybtood lama qiimeynba way ka boodeen inta magac isku qoray waa ka baawurta halka ku qoran accept baawurta aqbalo dhan ku halka qoran oo soo gaartay probokiska waxa lagu qiimeeyay $1,580 baa lagu qiimeeyay gaarigan noohada ah waxa lagu qiimeeyay $1,935 gaarigan feerosada ah oo cadaanka ah waxa lagu qiimeeyay $1,062 uu aqbalay approve waaye oo ku halka ku qoran arki kartaan waxa kaloo ku sii dheer 6 gaari oo uu leeyahay maxamed siciid mire oo ku halka ku qoran 6 gaari oo uu leeyahay maxamed siciid mire oo aniga ah wax qiimo looma hayo maxkamad baa saatiri baawurtaas anagu wax qiimo ah haba yaraatay u hayno ma jirto kadib aniga baawurtan axmed afdiile oo 35 gaari baan ku doodayay 26 gaari qirtay 26 gaari qirtay maxkamadda wax u geeyay warqadihii cadeyntiisa 9 gaari oo kale u geeyay inuu axmed afdiile soo gaartay qolooyinka doonyaha baan u tagay waxaan ku yiri baawurta inuu soo dhibtay ninkii waa ankirsan yahay cadeyntooda inaan ka rabaa hadda tusaale ahaan halka 3 gaari baa ku cad waxa ku qoran ninka ah anigu ah buu yiri Faisal Maxamuud Ibraahim oo la markaa wata ahna maamulaha guud ee shirkadda Al-Khayraat waxaan halkan ku cadeynaynaa in doonta Al-Yaasiin aan ka dejinay gawaari taariikh markii ahayd 2019 sidoo kale waxa gaarigaas noo soo dhiibay oo noo soo saaray ninka magaciisa la yiraahdo maxamed siciid mire waxaana wakiil u ah oo u joogay boosaaso axmed maxamuud siciid waan ku wareejinay gaadiidka dhamaantiis waa gaari Land-Cruiser ah jees numberkiisa waa ka gaari waa mini Pajero jees numberkeeda waa ka gaari Probox cadaan waa ka taariikhdiisa soo dhigay sida awgeed waxaan codsanaynaa in aan baawurtaas ka dejinay waxaan cadeynaynaa in aan baawurta ka dejinay dekada boosaaso waa shaabadii ninka ku sixin warqadda waxaan geeyay maxkamaddu waa iska dhigtay baawurtaas cadeyntoodii aan geeyay imaysa xukumin way ka boodi aniga baawurteedu waa kuwan halkan ku qoran oo arki kartaan gaariga Probox-ka ah wuxuu ugu fadhiyaa $3,000 gaariga baraadada ah wuxuu ugu fadhiyaa $7,765 doontii wadana waa taasa gaariga mini bajarada ah wuxuu ugu fadhiyaa $3,300 doontii wadana Nisaamudin bal waa taas gaari noohada geerka ah wuxuu ugu fadhiyaa $5,500 doontaas waday meherab leh aniga baawurteedu dhan waa kuwa halkan ku qoran iyo xisaabtoodii lacagta baawurteedu total waa $1,442 baa aniga ninkaas soo gaarsiiyay oo cadeemahooda haya maxkamadda darajada labaad saasay nagu xukuntay anigoo ka sugaya maxkamadda darajada labaad cadaalad ka sugaya inay baawurteeda qiimo fiican ugu qorto ay baawurteeda $1,000 ka soo qaatay sida arki kartaan idinkoo dhan waxay qiimo ahayn kadib maxkamadda darajada labaad anigii wuxuu ugu xukuntay lacag dhan $26,152 oo meel ka keentay aan aqoon oo soo dilashatay marka u tagnay aan weydiinay guddiga maxkamadda wuxuu yiri rafcaan ka qaata anaga xisaabtii saasna noo noqotay rafcaan ka qaata maxkamadda saddexaad u gudba maxkamadda sare oo ugu dambaysa anigoo sugayay
maxkamadda sare ugu dambaysa anigoo sugaya oo rafcaan u qaatay oo isleeyahay maxkamaddaas ugu dambaysa oo cadaalad ka helaysaan ayay xukunkii maxkamadda saddexaad anoo maqan oo aan ogeyn oo aan ka qaybgelin oo aan ii yeerin xukun soo saartay waxay tiri xukunkaas oo ah maxkamaddu waxay diiday cabashadii uu qaatay maxamed siciid miro aniga ah cabashada wax ka soo qaatay maxkamadda labaad waxay ahayd in baabuurtii ku dooro uu qiimeeyay waa diiday waa la raacay maxkamaddu waxay u xukuntay xukunkii hore oo darajada labaad bay raacday sidoo kale maxkamaddu waxay ku xukuntay maxamed siciid miro aniga ah $4652 oo kharash kala ah oo tiri waa kharashkii maxkamadda oo aan ogeynba anigu ogeyn bay tiri dusha ka saarnay cadaalad darradaas marka igu dhacday oo weyn oo ka tirsanayaa maxkamadaha waxa kale oo rabaa in ummadda Soomaaliyeed ummadda reer Puntland u soo jeediyo ninka la yiraahdo Maxamed Degale oo taliyaha qaybta ahaa qaybta nugaal ninkaas wuxuu geystay tacaddi wuxuu geystay bahdil anigoo dambiile ahayn ayuu wuxuu sameeyay ciqaab igu sameeyay gaari dushiisa igu xiray waxaan codsanayaa xilliga maxkamadda cadaalad la helo hadda maxkamadaha cadaalad kama jirto xilligii maxkamadda cadaalad la helo in ninkaas maxkamad aan la soo saaro ayaan codsanayaa sharcigana ha loo sinaado waxa u maleynayaa sharciga Puntland inuu dad gaar ah qabto haddii sharcigu dad gaar ah qabtana loo sheego hana la yiraahdo dad sharcigu dad gaar ah qabtaa nin kasta magaaladiisu wuxuu ka dhigsanayaa gobolkiisu wuxuu ka dhigsanayaa maxkamad isagoo u gaar ah hoos tagta madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne anigu wali sidii waan ku sugayaa waxaan rabaa arrinteeda inaad soo faragelisid baabuurteedii baa la dhacay $6,000 la igu qoray sida arkaysid maxkamaddana arkaysid anigoo baabuurteedii la dhacay waxa la yiri lacag baa lagu leeyahay madaxweyne waxaan rabaa arrinteeda si degdeg ah inaad u soo faragelisid oo arrinteeda wax uga qabatid oo haddana lagu dulmiyey Puntland waliba gaar ahaan Garowe oo shaati dawlad loo adeegsaday oo taliyaha qaybta nugaaleed u adeegsaday dulmigaasna inta joogtay buu igu dhacay oo madaxda ka ahayd Puntland dulmiga waxa ay geystay madaxweyne taliyihii hore oo qaybta Maxamed Degale oo gobolka nugaal ka ahaa markaas baarlamaanka Puntland oo gudoomiyihii ugu horeeyo waxa fariin u diraya in arrinteeda soo farageliyo oo wax ka qabto cadaalad xumada la geystay hanteedii lagu dhacay ayaan ka codsanayaa maadaama baarlamaanku uu diiday maxkamadda sare oo xasaanad ay ka weeday iyadoo xasaanad haysan aniga hantideedii ay xukuntay oo dulmi ugu xukuntay oo hantideedii waxa kama jiraan ka soo qaaday ee tiri lacag baa lagu leeyahay waxaan ka codsanayaa baarlamaanka Puntland inay arrintaas soo farageliyaan maxkamadda u deedaan xasaanada ayaa xukun aniga ugu soo saartay hantideedii ay ku dhacayaan shaati qabiil loo gashtay dad gaar ah dhinac ka raran maxkamad dhinac ka raran weeye maxkamadda saddexaad xasaanadna ma haysato mana aqoonsani baarlamaanku waxa ay diideen oo maxkamadda ka diideen saddexaad oo iyagoo la ansixin ayaa maanta la rabaa in xoog loo fuliyo oo aniga lagu fuliyo dadka shacabka lagu fuliyo iyadoo haysan wax xasaanad ah ayay rabtaa in anaga xukunkan ugu fuliyaan marka waxa codsanayaa maxkamadda oo sharciga loo sinaado mid yar iyo mid weyn ba sharcigu qabto reer Puntland dhan anagu maxkamadda ugu siman yihiin waa in Puntland maxkamadaha cadaalad aan ka helnaa maadaama aan nahay reer Puntland aan ka soo jeedno waa in cadaalad ka helnaa baarlamaanka waxa uu dirayaa in arrinta soo farageliyaan madaxweynaha waxaan ka codsanayaa usna in arrinteeda si hoose oo si dhaqsiya badan igu soo jawaabo nin dulman baan ahay madaxweyne ismada Puntland waxaan leeyahay dulmigaas lagu geystay ismada Puntland baa tihiin dhaqankii Puntland baa tihiin dhibaatadaas laga geystay hantidaas cadeymaheed aan haysto baa iga maqan xataa waxa haystaa rasiidada ku soo iibsaday oo dubay ka soo iibsaday oo arki kartaan gaari kasta rasiidkiisa haystaa xilligu yimid baan hayaa cadeymahiisa baan haystaa biilashi doonyaha baan hayaa oo ninka u soo diray oo waxa weeye baabuurtii oo aan ku salamiyay isma waxaan ka codsanayaa arrinteeda inaad soo faragelisaan oo waxa weeye aan cadaalad in ka helo baa codsanaya waa kuwan magaciisa Axmed Maxamuud Saciid biilashi doonyaha kuwan waxaas oo dhan cadeymaheega weeye waxaas oo dhan maxkamadihii way iga diideen waxay dhaheen anaga ma khusayaan marka isma waxaan ka codsanayaa ismadeeda baa tihiin way qaban kartaan waxaan ka codsanayaa hantideeda in aad ii soo dhicisaan oo waxa weeye ninka aan dulmiga ka sheeganayo aad waxa weeye iga qabataan waxa kale oo xeerinaya waxyaalo badan baa xeerinaya aan waxyaalo badan xeerinaya oo nabad raadinaya si aan waxay nabad ugu heli lahaa nabad baan raadinaya nin aanu dib wada miihi
dhamad baa raadinaya si aan waxayga u helo kaliya baan u baahanahay haddii ay sidaas wax ku sii socdaan maxkamadahan sidaa ku socdaan oo cadaalad darradu saa sii noqoto idan Soomaalida wax ku maamahdaa nin tuur leh waa yaqaan siduu seexan lahaa waa mahadsantihiin dhammaantiin dad badan oo isu jawaabay baa jira waxa weeye aad baan u mahadcelinayaa dhammaantiin dadka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland oo ka xumaaday cadaalad darrada lagu sameeyay iyo kuwa dhibaatada ka xumaaday aad baan u mahadsantihiin dhammaantiin warbaahinta Soomaaliyeed iyo suxufiyiintan wax iga duubay iyo dhammaantood kuwa sheer garastay iyo kulliba dhammaantiin waa in mahadcelinayaa aad baan u mahadsantihiin waxa weeye saa wax maateen dhibaatadan aniga ugu dhacday waana mahadsantihiin insha Allah xaq mar dhow insha Allah cadaalad waa heleena cadaaladu xaq ha sareeyo